gurigaasna ilmaha kusoo socdaan xalaa loo baahan yahay wuxuu rabiyaa in uu labadiisa xaas isku haysto in labadiisa xaas uusan yacni kala eexanin labadiisa xaas yacni in uu xaqooda hadii kadib uu simo naagta weyn waa in la dhahaa naag ayaan kula guursaday hadda kadibna la soco aniga markeedaan tagaa markaagana waa kula joogaa channelku waxaan ku soo gudbiyaa sheekooyin xiiso badan qisooyin xaqiiqo ah vlogyo oo ayagana ay la socdaan qisooyin oo aad u xiiso badan waxaan si diiran kaaga codsanayaa in aad subscribe ii saarto adigoo mahadsan soo dhawow lacagtii la soo shaqeeyane bohola ugu furan meeli kurida adika sheeg dhowr ahaan kama muuqato guri ahaan kama muuqdo waxaan ku dhahay lacagtu waxay ku sameeyay adika la sheeg lacagteeda iska rabtaa ayad balse Axmed tookadaan wuxuu indheen dheestay arrinuu isku aadistay sababtoo ah maalin maalmaha ka mid ah intuu fasaxa ku jiray uu joogay waxay isbarteen gabar xaafadooda degan kadibna xaaladiisa dhan uu sheegay waxba ma uu ka qarin حسن ليهاي لكن wax caruura ima aysan dhalin wax kaasa la soco adigana waa aan ku rabaa maba aysan ka diidin balse wuxuu u sheegay in uu sanadkan laabanayo sanadka soo socdana uu soo guuray gabi ahaan magaalada dhinac uu ka soo degay kadibna reerkeeda uu ka doonanayo oo na guursanayo adiga isbarasho iyo telefoon iska qaadasho iyo ninkii uu laabtay sanadkan gabadhan way yaaban tahay wajiga ninkan kuma is aqoon jirin galab walba in la baxo telefoonka waxaan ku dhahay in la ilaashto xarakaad badan isan ninkan ku aqoonayeen saas tahay waa taanisha gabadhan baqiil baa iska ahaatee laakiinse war oo maskax haysato way u kaas wixii istirikaad badan waa loo gobol badiyay bal subo sanadka dambe maadeen sanadka dambe asoobo boorsooyinkiisa iyo dhilihiisa iyo waxiisa dhan wato biimidba isla xiligaas hadana maxamedna uu la socday maxamedna uu soo kansalay aseen uu iska soo kansalay shaqadaas oo waxay ba sameysteen shaqo waxay wada furteen dukaan aad u weyn dukaankaasna waxay noqdeen dad shirka ku ah labadii nin waa Axmed iyo maxamed waa nin iska degan reerkiisa caruura u joogto inda taag badan ma qabo laakiin ninkan waa ninkii inda taag qabo isla xiligaas gabadhii ayuu doontay oo waxa loo guuriyay gabar loogu magacaabo Sara waxa la dejiyay xaafadda Leele ee degan tahay 3 saacadood meel u jirto yacni meel aan u dhaweyn asiga xiligaas wuxuu isleeyahay ma lagu ogaanayo kadib Leele jabigeedu iskaaga degayahay baqiilnimadeeda iskaaga jirtaa ninkii maadaama oo magaalka dhinac ka soo degin waxay taagan tahay 3 waqti lama cuni karo niyo ku talagal waqti ka waqti gurigan laga cunaa halkaas waqti ama dib ku qabaab ani Leele ahaan asigoo taas la yaabano isle naagta ma ayada shaqo u dirtay ma ayada soo xamaalooso maxaa ka galay haddana waa nin meel u caday tan uma bajeedobo arinteeda uu u kaadiyay okay waan xabo sheekada aan ugu sii daal Axmed gabadhii kale Sara uur ayay u yeelatay meel ma farxadiisa la saaro malahan aad ayuu taas ugu farxay taas markuu aad ugu farxay wilin uu kala qarinayo xaaskaasiti maalintii loo tago la dhahayo dukaanka aniga aan ku qoranahay ninka shaqaalaha fasax qaatay ninkii asaan dhahay ma imaan karo shaqaa ku mashquulsanahay kida laakiin hadda gurigan waa eber gurigaasna ilmaha ku soo socdaan xalaa loo baahan yahay wuxuu rabiyaa in uu labadiisa xaas isku haysto in labadiisa xaas uusan yacni kala eexanin labadiisa xaas yacni in uu xaqooda hadii kadib uu simo naagta weyn waa in la dhahaa naag ayaan kula guursaday hadda kadibna la soco aniga markeedaan tagaa markaagana waa kula joogaa laakiinse intii sadhicin ayaa Leelo waxeebo markuu soo laabtay ilaa waqtigaas asiga la ilaalinay asilaakiin ma ogo
markay dukaanka tagto way weydiisaa aabay Axmed ma joogo asiga wuxuu leeyahay dukaanka joogo markay tagto waxa leeyahay ma joogo asiga wuxuu leeyahay dukaanka joogo markii dambe taas way u dul qaadaweysay waxayna sameysay in ay ninkeeda raaqay yacni in ay ilaaliso ee dadku dirto dadkaas ay dhahday iisoo ilaaliya ninkan kadibna wixii ogaatay ninkan inuu xaas kale leeyahay xaaskaasna lagu magacaabo Saara Axmed intuu safarka ku guda jiro waatuu Maxamed xaaskiisa baray way baxday leel wixii u tagtay Maxamed xaaskiisa wixii ku tiri ninkeyga ayaan ka shakisanahay mar haddii ay dumar ku heshiyaan oo ay ku dhamaatay tii ayaa wixii ku tiri meel alla meesha uu galo waan ka dabagaleynaa waan ogaanaynaa maalmaha kamid ah asoo dukaankiisa ka baxay gaarigiisa iska qaatay aan bal oo dareemoninba in la daba joogo ay waxay sameysay naagtiisa iyo naagtii Maxamed ba way daba galeen si u sii socdeen waxay soo arkeen gurigii uu tagay subaxii ayuu ku soo kala heen marka ninkan uu iska soo hoyday gurigii Leela ayuu seexday yacni wali gabadhaas ma la soo bandhigin inkastoo ay xaamilo tahay laakiin si waa la qarinoyaa soo maahan ayagana ku heshiiyeen yacni in uu gurigan oo ku badbaado kaasna uu ku badbaado kadib gabadhii iyo xaaskii Maxamed way is raaceen subaxii sida u sii socdeen ay waxay tageen gurigii gabadhii Saara ahayd albaabka ay ku gargaraaceen markay ku gargaraaceen gabadhii oo Maxamed qabi ayaana gabadha la hadashay una tiri jiraankaaga ayaan ahay hadda dhow ma soo degtay maya ayuu ku tiri waxaan deganahay muddo sanada kadib ayay is salaameen waxay iskaga dhigtay dad oo diriska laakiin gabadhan waa gabar la qabo haddana cabsanayso tuhun ku jiro isla ay waqti ayay ku soo raadi karaan ay ku arki karaan maba eesa ka waalinin saalada ay fadhiisay kadibna waxay u doontay cabitaan cabitaankii markay cabaan gabadhii Leela dhagar ay wadatay wuxuu ku tiri adigana cabitaankaaga aaway markaas wuxuu ku tiri waa soo qaadanaya hadda Saara ayaa marti loo yahay labadii gabdhood waxay la joogan Saaro Axmed iyo Maxamed ba arintaas waxba kama ogo oo wixii iska wada joogan dukaankooda kadib ayaa waxa dhacday Leelo gabadhii Saara inay boojaasiyo ku tiri meesha ma fadhi karno balkoon ma lihid miya si aan balkoonka ugu cabno cabitaanka una sheekeysano anagoo habeen qaadanayno banaankana arkeeno gabadhii Saara ku tiri haa waan leeyahay meeshii fadhiga ay ka kaceen balkoonka ay aadeen laakiin qorshaheedu wuxuu ahaa cabitaanka in ay wax ugu darto Saaro si ay u dhimato balse ma ogo gabadha Maxamed qabo waa soo arkayna oo kaliya ayay ahayd waan soo baraneynaa hadda kadib ayay wixii rabtay go'aan wixii laga qaadan karo laakiinse waxa dhacayo ma la soconin isla xirigaas cabitaan akii ay wax ku dartay marka tan ay leedahay war maxaa ku dhacay mayay tiri wax yar way suuxi doontaa si aan ugu baxno guriga oo aan banaanku aadno kadibna ana aqaano Axmed sidaan u galaayo tii Maxamed way iska sadaqaday maadaama ay markii hore ay waxaan la soconin qoftaan inay wax hoos ku wadatay isan ogeen adiga alcamo gabadhii Saara cabitaankii sidii loo fadhiyay ayaa wixii u bedeshay qoftii Leela ahayd Leela cabitaani wax ku daray cabitaankeedan dhulkay iska dhiganay keedii la qaatay kii wax ku jirin waa loo dhigay wax yar kadib Leelo dhulka ayay ku dhacday ayadoo qaylinayso wili maxaa isiisay ayadoo dhehayso Saara ayaa wixii ku tiri may aniga waxba kuma siin hashaalilah laakiinse waxaaga oo kaliya weeyaan tii kale naxdin ayay naxday barti ayayna ka carartay ninkii ayaa la wacay waxa lagu yiri xaaskaaga way dhimanaysaa ka soo gaar ambalaasna waa la sii wacay markii ambalaasta imaanaysay iyo ninkii markuu imaanayna way isla ekaayeen balse ambalaasta yaa la saaray asiga wuxuu u haystaa qofka dhibka ku dhacay Saara waxa mufaaji'o la noqotay laakiinse ambalaaska in ay Leela saarneed Leela guriga maxaa keenay sidee yacni wax ay u cabtayne kadibna booliskii ayaa imaadeen Leelana bartii ayay ku geeriyootay booliskiina waxay xireen Saara maalmo kadib markii maxkamadda la soo istaajiyay Saara waxay cadeysatay ayada wax suna in ay cabitaankaas gacanteeda ugu dareen laakiin sababta koobkaas ay ku kala bedeshay oo kaliya ee lahayd
waxaynu ku tiri aniga koobka markaan bedelayay nafteeda xataa ma aysan islahayn sun ayaa ku jirto laakiin shaki ayaa igalay gabdhahan aanan aqoonin markii ay ii imaadeen ee inay ila sheekaystaan damceenne oo anigii sheekadii ka ogolaaday haddana iga codsaday biyihii aan siiyey cabitaankii aan siiyey oon kusoo dhabeey kaagiina aabay maadaama 3 qofoodna waa inaan 3 koob cabnaa oon ku wada sheekaysanaa kadib markaan cabitaanka soo dhigin dhowr dalab ee ii dirsadeen marba wax ay ii diraayeen anigana guriga qofkii iska lahay aan ahay marna dalabka uu doonay marna dalabka ugu dambeynay meeshii la fadhiyay in la bedeshay waqtigaas ay ii suurta gashay aniga koobkii meeshii yaalo la ii diyaariyay maahanay koob kale inaan qaato labadooda qofkii cabanay yani wax farqiya ma aysan ii sameyneynin aniga oo kaliya nafsadeeda ayaan badbaadsanaya maadaama shaki i galay waxa kaliya aan ka shakiin waxay ahayd ama ilmahaaga wax la gaarsiinaya ama yani wax maandooriyo dhib kale ku geysanaya ayaa lagu siinaya marna ma aanan islahayn wax dunida dhan dadka ka wadi doono ayaa la cabi doonaa ma aysan igu soo dhaceen kadib sidaas ayaa xukunkii loogu fududeeyay oo wax dilaa laguma fulinin oo waxaa lagu xukumay muddo 5 sano qisadan ayaa waxa ay noqotay qiso aad iyo aad la yaab badan adigoo soo duushay haddana adiga ha lagu dhibaateeyo axmed taas qaracan ayuu ka qaaday sababtoo ah ma uusan islahayn xaaskaaga ayaa gadaashaada wax ka fatashi doonto haddana fatashkii ayay ku dhimo doontaa ma uusan islahayn isla maxamed xaaskiisa oo ayadana qiratay maalintii ay ka codsatay inay garab istaagto ilaa ay hadda ay garab taagneed ugu dambeynna horteeda ay ku nafbaxday ayada ruuxeeda ay ku jirto wixii loo xukumay balse ruuxeeda dil laguma xukumin oo ayadani xarig ayay soo qaadatay intaan ayaan jeclaystay in aan la wadaago hadaa hore ila joogtay oo kuma santay daawashada videogan hadaad igu cusub tahay fadlan soo dhawo channelkaaga subscribe dheh furo gambaleedka si uu ku dhaafo wax walba ay soo dhigto walaasha ziyo kale dunida waa wax yar ee gaaban is xisaab inta lagu xisaabin bye bye